bishaaro dadweynow waxa dhammaanba macaamiisha iyo dadweynaha loogu bishaaraynaya in caanaha Costo oo laga kaaftoomay kumanan caano oo kale kalkana lagu soo kordhiyay nafaqo dheeraad oo u baahan ka faa'iideysi dhaqso maalmo kooban gudahood sidaad ka ogaad caanaha Costa oo ka koobnaa 2500 kilogram waxay shirkadda Waberi Promotion han ay u qaadatay stock ah 2750 kilogram oo noqonaysa 10% in lagu siyaadiyo nafaqada lagana faa'iideysan doono si degdeg ah sida 100 boga sare hawdka intuu ban iyo soo jiray banaanka ciidda baxa awgii muuqaalkii baadilmay baxsana markuu helo oo ay biyo ku jiraan durba uu bogsada barta waxa ka dhigan caanaha Costo ay labani ka buuxdo intay ubadku barbaaran bog iyo baar u koraan bilicsamaantoodana ay buto socdaan waa marka ay badsadaan caanaha Costo oo 10% lagu siyaashay carruurta bogta qaatay lafahooda wax u bartay garaadku u bayaamay aqligu u balaadhay ogow Costo ay badsadeen shirkadda Waberi ayaa waxay ku haysaa store ka kooban caanaha Costo isla markaas lagu soo kordhiyay nafaqadii 10% oo noqonaysa 2750 kilogram hadaba waxa dadweynaha loogu bishaaranayaa inay si degdeg uga faa'iideystaan intaan laga eedlaysan matadaycish fursadi yaa caam aad oo ka soo ibsa xarumaha Waberi Group adigoo ka heli doona dhammaanba gobolada Somaliland wixii faahfaahinta dheer ciwaanada iyo nambarada shaashada kaaga muuqda hadda degdeg kala xidhi